Asalaamu calaykum dhammaantiin. Ku soo dhawaada channelka Dr. Ajin. Maanta waxaynu ka hadli doonaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo constipation ama loo yaqaano calool istaaga. Ugu horreyn, waxaa muhiim ah inaan fahanno in calool istaagu uusan ahayn cudur ama xanuun. Kaliya uu yahay calaamad taas oo lagu arko inta badan dumarka iyo dadka waaweyn. Si aad u ogaato waxa uu yahay calool istaaga, waxa keena, waxa lagu daweeyo, iyo ugu dambeyn cawaaqibta iyo ciribxumada ka dhalan karta haddii la daweyn waayo. Fadlan dhammayso muuqaalka. Haddaba, waa maxay calool istaagu? Calool istaagu marka la qeexayo waxa lagu qeexaa criteria la yiraahdo Room Criteria 3. Room Criteria-du waa kriteriyoyin loo isticmaalo in lagu qeexo xogaha caafimaad si loo helo ama ay u caawiyaan daweynta xanuunada ku dhaca habdhiska dheefshiidka. Haddaba, calool istaaga waxaa lagu qeexaa in qofka lagu arko laba iyo wixii ka badan calaamadahan ugu yaraan muddo 12 isbuuc ah. 1. Saxaro ka yar 3 jeer isbuucii. 2. Straining ama ducasho badan oo ka badan 25%. 3. Saxaro adag oo aan la riixi karin ama aan la dhaqaajin karin. 4. Inuu qofku dareemo in saxaradu wax celinayaan ama ay xidhayaan oo kale. 5. Iyo in qofku dareemo inaan weli saxaradu ka dhammaan. Haddaba, maxaa keena calool istaaga? Waxyaabaha keena calool istaaga waxaynu kala qaadaynaa 2 qodob oo waaweyn oo kala ah gastrointestinal disorders ama marka ay ciladu ka jirto habdhiska dheefshiidka, iyo non-gastrointestinal disorders oo ah marka ay ciladu ka jirto meel ka baxsan habdhiska dheefshiidka. Haddii aynu ku horreyno gastrointestinal disorderska, badanaa waxaynu iyadana u kala qaadaynaa 2 qaybood oo kala duwan, sida functional disorders oo ah in waxani ay yihiin wax la xiriira shaqada iyo habka uu u shaqeeyo habdhiska dheefshiidka isbeddelo ku yimaada, iyo qaar structural disorders la dhaho. Functional disorderska waxaa ka mid ah dietary oo ah inuu qofku uu cunin cunto gas leh ama cunto wadani ama cunto gal leh, sidoo kalena uusan qaadanin fluid ama biyo ku filan. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo defecation oo ay keeni karaan anorectal diseaseska, kuwaas oo ay ka mid yihiin Crohn's diseaseka ama anal fisheries ama hemorrhoidska. Structural disorderska waxaa ka mid ah chronic carcinoma oo ah karsinoomoyin ama kansaro ku dhaca mindhicirada. Waxa ay keeni karaan in ay cadaadiyaan dareenwadayaasha spinal cord-ka ama xangulaha, taas oo keeni karta in ay joojiyaan dhaqdhaqaaqa caloosha, hadhowna sababi karta calool istaag. Waxaa kaloo ka mid ah structural disorderska diverticular diseases, xanuunada la yiraahdo oo loo yaqaano diverticulosis. Waa small pouches ama pockets yaryar weeyaan, waa xidhmooyin yaryar kuwaas oo ku samaysma gidaarka habdhiska dheefshiidka, taas oo keenta cadaadis, hadhowna sababi karta bowel obstructions waxa la yiraahdo, ama inay xidhanto isu socodkii calooshu, taasina hadhow ugu dambeyn ay keeni karto constipation haddii ay raagto. Qodobka labaad oo ah marka ay ciladu ka timaado meel ka baxsan habdhiska dheefshiidka oo loo yaqaano non-gastrointestinal disorderska, waxaa ka mid ah neurological. Waa marka ciladu ay ka timaado brainka iyo nervous systemkii wada socday. Waxaana ka mid ah xanuunada keeni kara multiple sclerosiska xanuunka la yiraahdo. Badanaana xiriir baa laga dhaxaysiiyaa, waayo multiple sclerosisku wuxuu saameeyaa isku gudubka fariimaha dareenwadayaasha ee u dhaxeeya maskaxda iyo jirka. Sidoo kale waxa uu xanibaa in murqaha miskaha ee caawiya in saxarada dibadda la keeno ay kala bixi waayaan ama relax garoobi waayaan, taas oo hadhow keenta bowel obstructions waxa la yiraahdo, ugu dambeynna hadhow ku dambeyn karta calool istaag. Sidoo kale waxaa ka mid ah neurological disorderska spinal cord lesions ama dhaawacyo soo gaara xangulaha. Inta badanna haddii dhaawacu uu ka hooseeyo T12 waxay sababtaa in murqaha ama sphincterka ay dabcaan, sidoo kalena waxa yeesho defecationka. Waxaa kaloo ka mid ah psychologically, wax laga yaabaa qofku si psychological ahaan in uu calool istaagba qofkani uu hayo. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah xanuunada keeni kara psychologically depressionka xanuunka la yiraahdo ama quusta. Waxa ay ku timaadaa isbeddelka ku dhaca habnololeedka qofka oo saameeya cuntadiisa, taasoo keeni karta in uu qofku ama aad wax u cuno ama aad cuntadii uga tago, isbeddelada ku yimaada markaa habnololeedka qofka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xanuunada la yiraahdo anorexia nervosa. Waxay ku iman kartaa dadkaas oo cuntadii iska yareeya si ay isaga ilaaliyaan in ay naaxaan awoodood.
waxaana inta badan lagu arkaa anorexia nervosa dadka buurbuuran badanaana waxay ku dhacdaa dumarka oo qofka siduu isaga ilaalinayo cuntada oo isku leeyahay iska yaree hanaaxin ba waxa laga yaabaa in hadhow cunto yari iyo dehydration uu ku dhaco qofkaas dadna uu hadhow ku dambeeyo calool istaag waxaa kaloo ka mid ah metabolically ama endocrine ama si hormonaad ahaanba ugu dhici kara tusaale ahaan xanuunada hormoonal ahaan keeni kara saameyn kara waxaa ka mid ah diabetes mellituska xanuunka la yidhaahdo ee sokorowga sonkorta badan ee qofka jidhkiisa ku jirtaay waxa ay keeni kartaa inay waxyeesho dareewadayaasha jidhka iyadoo keenta diabetic nephropathy waxa la yidhaahdo taas oo waxyeeli karta neerfayaasha habdhiska dheefshiidka hadhowna sababi karta calool istaag sidii aynu kusoo aragnay spinal cord lesionska waxaa kaloo ka mid ah pregnancy-ga ama uurka waxay ku iman kartaa walwalka badan iyo dhaqdhaqaaq la'aanta sidoo kale cunto yaridda xilliga uurka gabadhu ay ku jirto ama hooyadu ay ku jirto waxa ay sababi karaan calool istaag waxaa kaloo ka mid ah iyadana oo keeni kara calool istaaga drugska ama dawooyinka qaar tusaale ahaan dawooyinka la yidhahdo opioidska ama xanuun baabi'iyaasha kuwani waxa ay joojiyaan manaanshiyaha iyo dhaqdhaqaaqa caloosha taas oo keenta in ay sare u qaado nuugista biyihii saxarada la socday haddii muddo badan sidaas ay kusii socotana sababta in saxarada oo qalalani ay timaado rectumka qofkiina ay ku adkaato inuu hadhow saxaroodo sidoo kale waxaa ka mid ah dawooyinkaas anticholinergics dawooyinka la yidhaahdo ama antidepressantska loo qaato depressionka labadan dawo ee dambe waxa ay xidhaan shaqada acetylcholinka neurotransmitterska la dhaho kadibna waxaa yaraada dhaqdhaqaaqa muruqihii ku yaalay habdhiska dheefshiidka iyo sidoo kale dheecaano badan oo ay ku mili jireen saxarada taasoo hadhow keenta in ay adkaato saxaradii qofkiina ay soo dhaafi weydo haddaba waa maxay calaamadaha xanuunkan calaamadaha xanuunkan ee qofku isku arki karaa waxaa ka mid ah kow saxarada oo qofka ka yaraata sidoo kalena adkaata 2 waxaa kaloo ka mid ah calool xanuun aad u badan 3 waxaa ka mid ah ducasho iyo iska keenid badan taas oo hadhow laga yaabaa haddii uu qofku qasabka uu ku sii wado inay dhacdo anal fissureska waxaynu naqaanay ama la yidhaahdo dildilaac oo hadhow rectumka oo dhan iyo anasti oo dhan ay dildilaac iyo qarqaraxyo ay ku yimaadaan dhiigto cadaadiska faraha badan ee la saarayo waxaa kaloo ka mid ah miisaanka qofka oo hoos u dhaca sababtoo ah qofkii oo aan waxba cunaynin haddii uu wax cunana uu ka baqanayo hadhow in saxaradii ay ka iman weydo haddaba maxaa lagu xallin karaa ama dawooyinka la isticmaali karaa maxay tahay sidaynu badanaaba sheegnaa dawooyinka oo la qaataa waxaa ka muhiimsan habnololeedka iyo hanaanka qofkaasi u nool yahay inuu wax ka bedelo tusaale ahaan kow cunista cuntooyinka galka leh ama cunto wadanida sidaad hadba u taqaano sida digirta galleyda sarreenka iyo garowga 2 cabista biyo fara badan ugu yaraan 2 ilaa 3 litir maalinkii 3 samaynta jimicsi badan haddaba medically marka aynu nimaadno waa in qofku uu isticmaalaa dawooyinka la yidhaahdo laxativeska isagoo oo raaci doona qaabka iyo talooyinka caafimaad ee dhakhtarka uu u qoray dawooyinka waxaa ka mid ah kow kuwa jilciya saxarada ee loo yaqaano Parkinson laxatives tusaale ahaan cunto wadanida ama methyl cellulose 2 kuwa cariya saxarada ee loo yaqaano stimulant laxatives sida bisocodyl 3 kuwa mila saxarada ee loo yaqaano osmotic laxatives sida lactulose ama magnesium sulfate 4 sabustada oo loo yaqaano suppositories sida glycerolka ama bisocodylka haddaba waa maxay cirib xumada iyo cawaaqibta ka dhalata calool istaaga haddii la daweyn waayo badanaa waxaa ka dhasha xanuuno aad u badan kuwaas oo hadhow khalkhal iyo dhibaato ku keena habnololeedka qofka waxaa ka mid ah babaasiirta oo loo yaqaano hemorrhoid sidoo kale waxaa ka mid ah dabada oo dildillaacda qofkaas oo loo yaqaano anal fissures waxaa kaloo ka mid ah saxarada oo qofka ku ceshanta oo loo yaqaano fecal impaction waxaa kaloo ka mid ah qofka oo saxarada haysan kari waaya hadhow oo loo yaqaano fecal incontinence sidoo kale waxaa ka mid ah qofka oo kaadida haysan kari waaya oo loo yaqaano urinary retention si aad u hesho muuqaallo iyo casharro badan oo ku xiiso geliya fadlan rukumo channelka oo subscribe leh like tana saar una gudbi asxaabtaada mahadsan